haddii ay timahaada yihiin kuwa adag bixi waayay siibmaan kaaja jabaan qoortana ay ku dhaafi waayeen maanta xalki ayaa lagu wadaaye gabar yahay bishaarayso midaasoo timaha bixinayso dheereynayso dhabarka dhaafinayso dhulkana gaarsiinayso insha Allah waxaa idin leeyahay maanta haddii oo videogan ku soo gaaro oo aad ku dhibaneed timahaaga iyo timaha gabdhahaadaba waxaan idin leeyahay bishaaraysta waxa haysataan wixii timaha degdeg u bixila kuwaasoo ay ka buuxaan magnesium omega 3 kuwaasoo aan laga helaynin jilciso iyo wax gasac ku jiro insha Allah fallan haddii ay tahay markii ugu horeysa aad soo booqatay channelka qurxin subscribe de beelka on ka dhigo una sii share garay asxaabtaada iyo gabdhaha jilcisada rafaadka ku qabaan insha Allah subscribe ballanteenu بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان وإد السلام انت كحر جان قرحين ما تمحي إذا الوذاقيسا آلاب دبيعية آلاب تاسو هدي أد مدح هذا مرسيد جلاعة اسكود بدعايو بحايو أفلاقة أقولك وحيالة بروبلم والبقوتين تكو إماتو باي باي إيا مع سلامة أيار ليرهاي سرت أنيقا إيدين شيغايا مانتا سرتاس وحاواي هالكاس أنكو هستاوا جايا سيرت أيال لها مريهان sidaas uu eegyihiin gacanta ayaan ku soo shubay si fiican ugu aragtaan miraha maadaama aan weelka si fiican looga arkaynin sidaas ayuu eegyihiin waa miro aad iyo aad u yar oo bibirqaayo oo sibibix ah marka jaya seedka muxuu ka qayb qaadanaya jaya seedka wuxuu aad iyo aad u wanaagsan yahay timaha waxa ku jiro omega 3 waxa ku jiro magnesium kuwaas oo ka qayb qaadanayo timaha inay timo cusub abuuraan inay soo baxaan inay yani rafaadkii iyo yani vitamins fara badan inay ka helaan ee timihii noqdaan timo straight ah nafaqaystay oo naaxay haddii aarti timahaada inay ku nafaqaystaan ee ku naaxaan hadda ha iloobi nafaqadan insha Allah jaya seedka aad iyo aad wuxuu uga qayb qaataa timaha bixitaankiisa wuxuu kale to istaajiyaa daadashada timaha siibashada agoolka waxyaalahaas oo dhan ayuu ka qayb qaadanayaa marka maxaan u isticmaalaynaa waa jaya seedka waxaan ku isticmaalaynaa moos iyo biyo waana arki doontaan sida ugu isticmaalno fadlan waxaa laga codsanayaa haddii ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqatid channelka qurxin subscribe de beelka on ka dhigo like tan inoo saar like waxay naga caawinaysaa inay gabdho badan oo timaha ku rafaadsan iyo wiilal badan oo bidaar gashay inay ka faa'iideystaan videogan oo u gaaro marka waxaan soo qaadanaynaa insha Allah biyihi markii aan soo qaatay kadib jaya seedka ayaan ku shubanayaa koob half kiis oo biyo ayaan haystaa kadibna jaya seedka inta aan isticmaalayo waxaa maay adiga ilaa iyo 4 macalgo oo jaya seed ah jaya seedka hadaba hamoogaaninaha gabdhow haddii aad heli kartiin sirta maanta aniga idin sheegaa insha Allah waa waxay noo shaqeeyay isticmaalnay awood wuxuu u leeyahay timahaada inuu ka dhigo timo jilicsan haddii ay yihiin kuwa adduunka uga adag oo kaleento haddii ay yihiin timaha bixi waayo kaleento aad iyo aad ayuu uga qayb qaadanaya hadda haddii aad ka quusatay madaxaada ha quusanin hadduu videogan ku soo gaaro ee isticmaal si dabiici ayaad u arkaysaa madaxaadii oo isbuuc gudihiisa isbedelay 4 isbuuc gudihiisna intuu ku dheeraaday dhabarka dhaafay dhulka gaaray dariskana kula qaadi doonaan insha Allah marka jaya seedkii ayaan biyihi ku soo shubay markii aan biyihi ku daray waan ku qasayaa marka si fiican ayaan isku dhaxgelinayaa inaan waxaan rabaa marka biyaha uu wada gaaro waxaan la dhigi doonaa ilaa iyo 10 daqiiqo marka uu la yaalana adika arki doontaan biidnillahi alkariim marka waxaan idin leeyahay insha Allah haddii ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqatay channelka qurxin subscribe de beelkana on ka dhig insha Allah una sii share garay asxaabta meel walba ku share garay gabar walba si uga faa'iideystaan madax xanuunka ee kiimikada ka qaadeen insha Allah ay uga baaqsadaan 10 daqiiqo kadib ayaan ku soo noqday jaya seedkaygii oo aan biyaha waa ku soo daboolay waa arkayseen 10 daqiiqo ayaan u soo sugay kadibna sidaas ayuu noqday wuu isdhax galay asagii oo dhan wuu jilcay wuxuu noqonayaa jeel wuu jiitamayaa yani waa arta madax markii jeel la mariyo karo madax jilicsan oo hal xabo u dhaqaaqo oo mid waliba waxa waay hal xabo ayuu meel u saarayaa ku dhahay haddii ay timaha shanlada dhibsan jirtay haddii ay gabdhahaada markii madaxa u shaleeynays dhibsan jireen haddii ay qaybta hore timaha qaybta u dambayso aflaaqo ama isku dhagitaan markii aad shaleynay sidoo kale aad dareemaysay
inay shanlada ay ku istaajinayso maanta macsalaam iyo bye bye ayaa leedahay kadibna waxaan soo qaatay qalaadada lagu shiido ama galaaska lagu shiido juuska waxaan ku shubayaa jayseedkii markii aan ku shubo kadib waxaan ku ridanayaa moos oo hal xaba ayaan isticmaalaya hadda familkaada iyo intii aad u marinaysid ayay ku xiran tahay moos hal xaba markii aan ku rido kadibna waxaan soo qaadanayaa koob halfkiis oo biyo ah kadibna waan iskula shubayaa waan soo shiidayaa markii aan soo shiidana adinka arki doontaan sidoo ku soo bixina la soco waa kana hadda markii aan soo shiiday sidaas ayuu ku soo baxay asaga dhan wuu isdhaxgalay ma jeedaa wax kuuskuus ah dhan malahan wax oo yacni oo timaha kaa dhibaayo kaleento haddii aad isleedahay xoogaa waxa ku jira qashin waxa soo qaadanaysaa shabaqa waxa lagu miiro kaleento markii aad soo qaatidna waan iska miirayaa aniga waan iska miirayaa wax yar ayaa ka baxay intaas yiriista xitaa madaxaada hadhow shanla badan ayuu kugu dilayaa qashinkaas iyo waxaas kaaga hiraayo intaas yar xitaa iska miir ku miir weelka caanamiirka waxa lagu miira ama shabaqa waxa lagu miira hadba sidaa u taqaanid qashin intii ku jiro ha kaa harto intii nadiifka ku ahna madaxaada ku masaajay oo ku shanlayso 1 saac 30 daqiiqo ugu yar 1 saac 3 saac 4 saac intii markaas aad fursad u haysatid madaxaada ayuu kuugu jirayaa kadibna waa iska dhaqaysaa shaambadii haysta iskaga dhaqaysaa biyo caadi iskaga dhaqaysaa isla markii hadda waxa u malaynaysaa in la fooneeyay madaxaada waxaad arkaysaa asigoo istaagay ku dheeraaday dhabarkana sii dhaafayo waxaan idilaa insha Allah moogaanaha alaabtan dadka waxay ku dhahayaan mar waliba mid nooca soo gelisaa haa sababta waxa mid nooc soo geliya mid waliba wuxuu wataa wax u qaas ah shay waliba wuxuu leeyahay vitamin u qaas ah ayuu leeyahay marka maxaan u baahanahay waa inaan mid walba waxaan rabnaa nafaqadiisa ee madaxeena noo gasho si uu noogu shaqeeyo vitamins fara badan inoogu qaato madaxeena inoo baxo aan ka baxno yacni maxaa madaxa mariyaa madaxa ii bixi waaye madax xanuunka tima jajabka siibashada waxaasoo dhan ayuu maxuu ahayn dad sida vitaminska afka looga qaato ama jirkiin mar waliba kareemka u marisin ayay timahana u baahan yihiin ina vitamins loo siiyo maxayse ka heli karaan waxay ka heli karaan nafaqooyinka dabiiciga ah adigoo isticmaala mid waliba midda ay ka wanaagsan tahay ayaanan anaga idila soo wadaagnaa kuwaasoo madaxiina haddii aad marisiin aad arki doontaan natiijo fara badan dad badanna ay kasoo mahad celiyeen ee dheheen waan ku faa'iidnay sidaas oo kaleenta haddii aadan adiga weli marsanine waad ku faa'idi doontaa dad badan ayaa commentig dib noogu soo noqdo dhaha 1 maalin markii aan mariyay isla markii ayaan dareemay madaxayga inuu ii jilcay ii dheeraaday kala baxbaxay marka waxa idilaahay insha Allah haddii aad madaxa iyo wajiga iyo ayil wax walba aad dib ku qabto karan iyo qurxin gambarka ag dhigo hamogaanin insha Allah waxay soo gelisaa wax walba oo ku saabsan isqurxin haddii ay noqoto miisaan dhimis haddii ay noqoto inaad korkaada qurxistid haddii ay noqoto inaad timahaada qurxisatid waxaan idin tagay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi